واجهي سؤالها القبطان أياد إمك أنا ويدي كريسان مركز دايرو فاهم ديار ان horta su'aalan qabaa in su'aalaha shicibka intaan soo noqon واي shicibka ay halka ku soo qorayaan in maxaa la soo galay Djibouti iyo waxyaalo badan waa intaan halka soo noqon asha qabo waxa weeyaan in Soomaaliya maanta waa dawlad sida ay qaramada midoobay sheegtay oo maxaa ku dhaca dawladii ku meel gaarka ahayd maha dawlad maxaa ku dhacda in Xasan Sheekh Koorey waa dawlad maanta la oran karo in aqoon bay leedahay iyo khibrad bay leedahay maxaa sababay in ay ilaa hadda ciidanka amnigoogu ay u ogaan waayeen waxyaalo badan amba waxyaalaha loo geysto waxaan imika aan misaalad aan kaaga soo qaaday qaraxii ugu weynaa ee intan ay dawladda farmaajo ay joogtay isgoyska Soobe ka dhacay in 14 October baan jeclahay okay qaraxaasi idaacadaha in waliba idaacada Faransiiska ee TV5 amba TV5 la yiraahdo khabiir in dhinaca qaraxyada marka uu ka hadlayay waxa uu ku qiyaasay qaraxii in maalintaas intii ku dhimatay Ilaahay naxariis janna ka waraabiyo intii ku dhaawacmatayna Allah ka caafimaad taamaha siiyo waxa uu ku qiyaasay 500 ilaa 2,000 oo tan ilaa 2 tan waa waxa weeyaan waa 500 oo kiilo ilaa 2,000 oo kiilo qarax gaaraya ayuu ahaa waxaana la barbar dhigay safaaradii Mareykanka ee Tanzania ee difaaca inta ay lahayd ogaa ay haddana ciidanka argagixisadu ay qarxiyeen safaaradaas qaraxa gaadhay ilaa dabaqyada soo daadiyay ayaa lagu qiyaasay in uu la mid ahaa qalabka la adeegsaday kii isgoyska Soobe ka dhacay okay 500 ilaa 2,000 oo kiilo wax yar ma aha wax la oran karayo waa masaabiir baana lagu buuxinayaa amba biraa lagu buuxinayaa maaha oo inta leeyahay isla sanadkaas la en qaraxa bil waliba waxaan jeclahay bishii 9 September 2017 en ciidanka Djibouti commission shirba dhacay shirkaasi waxa lagu sheegay oo lagu soo bandhigay en qalabkii qarxayay miinada sekad la yiraahdo sekad waxa weeyaan xanjada la calashado haddii albaabka lagu tala galay teena fast soo marin ee blandeega la yiraahdo xanjada la calashado in yar oo leeg oo sekada haddii lagu dhajiyo albaabka uu dhaafaya walbaabka lagu tala galay in rasaas bunduqna uma soo marin ayaa xabad xanjada sekad ku qarxinaysa commissionkaasi waxa uu sheegay oo soo bandhigay in miinadii en maxaa ku dhahdaa shiinuhu lahaa ee buuraha lagu tala galay in lagu qarxiyo ee sekadka la xaday oo la waayay commission ciidanka Djibouti oo ka dhacay maxaa ku dhahdaa etamajorka amba maxaa ku dhahdaa xerada saldhiga ciidanka Djibouti oo dhacay bishii 9aad 2017 marka waxa leedahay halkaas aan soo fahmno maadi maqlaysaa وكبوري سؤاله كعرّان ملايا سؤال شباب سؤال ولي مغين بعضو قشي فهميو
ما يوصل لابنا وصل لابنا ياي كم فضايد سعش وصلنا هذا واحد ما مغلى فهميو فهميو بمغلى سفيعا وما كسوق يبا waxaad ugu tiri mataqaanaa bam inuhu ay lahaayeen ayaa commissionerka waxa laga waayay Djibouti Soomaa bankaasi bam maaha waa miinooyin loo adeegsado waxyaalaha qarxa oo aadka ugu waaweyn ee waliba magaciiga la yiraahdo C-cat amba C4 la yiraahdo waa miinooyinka waa bamka hadaan ka bamka miinooyinka lagu qarxiyo buuraha lagu qarxiyo kale waka xeerad Djibouti ayuu alaabtaasi yaalay taariikhda la soo sheegay ee la soo bandhigay in la waayay bishii 9aad bay ahayd waa bil ka hor qaraxii Muqdisho adu waa bil ka hor qaraxii Muqdisho marka su'aasha aniga weydiisay maxay tahay marka waxa ay tahay taas ayaa la soo sheegay oo la dhigay markaasi miyana la isweydiin war waxan la adeegsanayo waa qalab sideeya waa qalab ay dawladi heli kartaa mise waa qalab ay shakhsiyaad argagixisa kamid ah heli karayo waxaan ku sheegay arrintaas si kooban baa kaga jawaabay adoo waqti iska lumin aku soo dhameeyo in yar maalin dhaweyd waxa la soo bandhigay oo la lahaa waxaan helay stoorkii ugu weynaa ay al-shabaabtu Muqdisho ku lahaayeen oo miinooyinkoogii wax walba u yaaleen waxa desan TV-yadan ka aragnay amba idaacadahan Facebook-yadan ka aragnay xarkay haayeen waxa la soo bandhigay iyo rokeedo daalay oo hadii la isku geeyo wax qaban karaan laakiin inay marna wax awood inta leeg ay yeelan karaan uma maleeyo marka maxaa sababay in ay la isweydiin waayo waxyaalaha qaarkood war waxaan la isticmaalayo awood inta leeg buu leeyahay miyaana la talin oo khabiirada adduunka ee miinooyinkaasi miyaana maxaan ku dhahdaa ayna arrinkaasi lagula talin qoys anu arrinkaas waxaan u daba socdaa anigu waxaan ogahay ninka shaqadiisa ku waayay alaabtaas nin miskiina nin miskiina oo muwaadin reer Djibouti aan maanta ku sii dheeraade ona ka soo jeeda dadka aad looga tirada badan yahay ayaa lagu qabsaday arrinkaas oo ilaa hadda shaqadiisa ku waayay oo howlgab lagu geliyay isagoona shaqana ku lahayn muftaaxana meesha ahayn muftaaxa meesha oon ogsoonahay ninka koroneelka ina qayaad la yiraahdo in uu muftaaxa miinooyinka wahayay isaga marka laga yimaado chef de corps CCO-da xerada CCO-da la yiraahdo ninka haystay inuu noqon karo ninka labaad ee awood u leh inay miinooyinka bixi karaan amba la xirayn karo haba noqotay ninka khabiirkaay aan shaqo ku lahay aan awood u lahayn markaasi inuu muftaaxiga wahayo meesha uu ciidan ilaalinayay sababta loo dul saaray ee maanta bariiskiisi loo gooyay ayaan anigu wili hadda daba socdaa okay taasi waa to anaga noo dhaxaysa laakiin inigu dawladda maanta cagaha isku taagtay sidee uu ogaan weyday in waxan la isticmaalayo awoodda inta uu leeyahay amba awood lagu heli kara may tahay oo argagixisa heli karto mise waa awood wadan shisheeye oo fara kula iman karo waxa weeye waxa jira xigmad leh baadida nin baa kula dayday daalna ka badan in la helna aan doonayn daayin ebadkaay dadka Soomaaliyeed marka fiirso madaxdooda iyo waxooda xifaarta dhexdooda ku mashquulsan yihiin horta kuma mashquulsan arrimaha mataqaan dhacaya ama dadka qaarkood xanuun kuma hayso laakiin xogta adna ka dhawaajinayso oo aan jeclahay inaan fahmiyo barnaamijkaas marka ka baxno aan si gaar ah meeshii live kaga soo guriyo oo aan ka wareysto waxa weeye halku iyo xogta iyo macluumaadka la helayaba way soo laabanayaan fahmiyo oo waxay ku soo laabanayaan qaraxyadan waaweyn iyo miinooyinkan iyo bustooladahan ay shabaabku isticmaalayaan hubka oo dhanba Djibouti uu soo maraya oo wuxuu ku soo laabanayaa
macluumaadku inta badan sheegaya ama reer galbeedka la sheekaysa ama dadka sirdoonka Djibouti dadka la sheekaysa qaarkood askartu waa baahan yihiin saraakiishu waa baahan yihiin Djibouti haddana wax weydiisto waxba badan kaa qarimayaan marka macluumaadku wuxuu sheegayaa TPLF iyo Ismaaciil Cumar Geelle si wada jira arrinta kan jiray macluumaadka runta ah taas qaraxii ka dhacay Soomala dowladda Soomaaliya reportka qortay uu ku qoran yahay kuwa xaalna reportka uu ku qoran yahay UN military groupkana waa saddex kamid ah way soo weydiiyeen waxna warbixinna way ka qoreen in la sii daayin kalmo miinada qaraxa Soomaal loo adeegsaday Djibouti baa laga soo qaaday inta la isku raacsan yahay weey marka hadalkaagu maanta aan leedahay September bishii 9aad 2017 ayaa la waayay miinada in la helo qof adoo kala xoogaalo maanta arrintan barqaad furay wax ajiib weey marka laakiin aniga muuqata madaxdii mas'uuliyad iska saar lahayd oo miinooyinkan iyo halkay soo maraan iyo macluumaadkan iyo hubkan shabaabka gacanta ka helaan raadin lahayd in muuqato waanan arag madaxaasaan hadda haysanay laakiin waxaan ka roonahay annagu waa hadli karnaa aliiski waa nafisaynaa waxaan qabno waan sheegnaa waa hadlaynaa idinku laakiin haddaad igu joogtaan ma nafisi kartaan haddaad qurbaha joogtaan ma nafisi kartaan laba baraba wax kaliya taliya daba taagan waxyaabaha yaab kale aan ka bartay reer Djibouti waxaa ka mid ah gabadh fanaanada ii sheekayso gabadhu waxay tiri annagoo xanuunsanayno oo dhibaataysan oo nala saayay oo ayaa Ismaaciil u haasna leeyahay markaas la wariya adigu lacag ma bishaan maxaa dhacay ma muslim faraxsanayn anigoo xabsi ka soo baxay tiri maxaa ku faraxsanaanaya may madaxweynaha abba adin jildamandu fata oo ay